السلام عليكم دمان واني سلامي waxaan rajaynayaa inaad videogayga i baaqtaajaysiin amba meel sare ii gaarsiisiin waayo waa wax imaanitiga ku jirin iyo dulum aan awoodna u lahayn weeyaan aan durwaageeni inaan ku khaldannahay inaan ku saxsannahayba yaa aan maanta halkan ka caddaynaya waxaan ahay hooyo dhalinyar ah tacliin haysata oo heer master ka gaadhay أنا شغالة كترسن وزارة arrimaha bulshada لكن هذا ميهي ولا يجا إريي sababta la igu eriyana waan ii sheegayaa waxaan ahaa shaqaale ka tirsan ministère des affaires sociales waxaan u soo shaqeeyay wasaaraddaas 11 sano 2016 baan shaqo tagay ilaa imiga 2025 habase haatee intaan u soo shaqeeyay waxa igaga sii daran anoo intaasoo sannadood u shaqeeyay iyo sida aayar dayal laygu eriyay anoona wax khalad aan samayn aan absans laygu lahayn aan si wanaagsan u shaqaysanayay aan xoogayga xalaashanayay kaara daranka dulmiga iyo humiliationka iyo imaaniteygu wuxuu ka dhigan yahayba aanan la garanayn waxaan kasoo shaqeeyay wasaaraddaas saan ii sheegay 11 sano waxaan ku bilaabay wasaaraddaas iyadoo joogta Zahra Yuusuf Qayaad shaqaalan ka tirsanaa waxaan ahaa shaqaale walibana agent du terrain baan ahaa wasaaradda intaa oo dhan soo shaqeynayay terrain ugu jiray aan xoogaygiiyo iyo tacabkaygiiyo aan wax walba aan huray wasaaraddaas anyway taa waxay iga sii daranba wasaaraddaas waxaan ku shaqeynayay projet waxaan mushaarada la iga siinay projet deja ma bahaynba shaqaale rasmi ahba mabaan ahayn CDI contrat CDI laymiga laygama saxeexayn kolba projega wasaaradda timaado unbaa layga saxeexay je ne sais pas waxaa CDI layga saxeexi waayey waxaan shaqaale rasmi u noqon waa ilaa hadda waa waxaan madaxayga galila sidii ahaataba oo intaa oo dhan kusoo shaqeynayay ulufa markay timiday bay damacday inay dadkii projeyada ku shaqeynayay ay dareeriso ay siday doonto ka yeesho ay ixtiraam xataana wuu jiraayay shaqaale ixtiraam buu kugu leeyahay qadaris buu kugu leeyahay adigu wasiiradu kursiyadan bay fadhiyaan kursiyaashan bay fadhiyaan in dadka midhaha dhalinaya waa anaga